بسم الله أصحاب السؤال هذا معنى وناكسن بوق اسطنبول يونت كيس استحاد 10 كاميدا ومانتا بوغا بيج كافرتن إلى الحاد أيان مرينا إن شاء الله سؤال هذا سيدا كور هاسان لما يونيدان هورو سياسة مايني يونت كيس استحادان دحدو بجرنا عشر كمان الموضوع عيسو ولا مقع بحاي سيدا يونتي بلوغي سبا قيبان كسو دحجرنا اوها نايا بيورسون حاسا مينيسا او دانيسكا وحا لسعطان جرامر اهان وحان كو دحجرناي present continuous tense او اف تركيا او شمديكي زمان لغو دها اف تركيا او كدغان حالد وقتيغا سعوتا اما دعدو وقتها قبسوميسو دانيسكي لغو شرحاي جراماتيكال ahaan موضوع فقرتيسا سي او جي ahaan اسطنبول دا geziyorum اسطنبول ayaan ku dalxiisaya اسطنبول da geziyorum اسطنبول dhexdeeda ayaan ku dalxiisaya gezmek ayay ka timaaday geziyorum waa dalxiisid ku wareegid ku dhex socosho marka erayada hordhaca u ah istiyorum waan rabaa istemiyoruz ma rabno istiyormusunuz ma rabtiin adinka waa midda saddexaad midda afraadna istemiyorlarma ma rabaan miya iyaga ma rabaan miya markii su-aal ayaga inay hadlaan ma rabaan miya inay yeelaan ma rabaan miya marka qof ama asxaab weydiinaysid waa ereyga u isticmaalay marka shaashada haafkeeda habeer inoo muuqda ciddii buug aan haysan ha soo dhawaysato si ay noola socoto marka afar tusaalaha meeshaan loogu qoray buga 46 qaybta u sarreyso midigta ben birbilayd almak istiyorum aniga hal tikid ayaan inaan soo gata rabaa ben birbilet almak istiyorum aniga hal tikid ayaa in aan soo gato rabaa almak waa satan almak ayay ka timid oo soo gadasho ama soo qaadasho almak waa qaadasho aniga hal tikid in aan soo qaato ayaan rabaa ama soo gato midda labaad biz oraya gitmek istemiyoruz midda labaad waxaa la dhahay annaga halkaas in aan aadno ma rabno waa erayada qaabka loo isticmaalayo jumlo ahaan af turkiga sida ay u dhismato oraahda faraysyada sida ay u samaysmaan jumlooyinka xuruufta sida isugu xigsadaan grammatikal ahaan waa haykalka ugu wanaagsan qaabka jumlo turki loo dhisaa oo marna positive looga dhigaa marna negative u noqotaa marna su-aal u noqotaa marna positive with question ee u noqotaa idmo iyo su-aal isla socota ee u noqon kartaa ayaa hordhac ahaan cashirka ka hor naloo sii hordhacaya midda saddexaad disharo jikmad istiyormusunuz inaa banaanka u baxdaan ma rabtaan macnaha dad marti oo idiin imaaday habeen fiid ay tahay tusaale ahaan banaanka inaad baxdaan oo soo wareegtaan ma rabtaan markaa jumlo noocaas inaad dhahda rabto disharo waa banaanka jikmad waa bixid istiyormusunuz banaanka inaad u baxdaan ma rabtaan oo soo wareegtaan midda afraad onlar konuşmak istemiyorlarma ayaga in ay hadlaan ma rabaan miya macnaha ereya afar xabo hordhac ah iyo jumlooyin afar xabo hordhaca meeshaan loogu soo qoray midda koowaad istiyorum ay ahayd istiyorum oo jumlo la dhexgeliyey macna ahaan waxa ay samaynayso ayaa meeshaan lagu tusay istemiyoruz oo macna ahaan waxay samaynayso marka jumlada dhex gasho sidoo kale istiyormusunuz oo ma rabtiin markii jumlo la dhexgeliyo sida qoraal la dhexgeliyo macnaha ay samaynayso iyo istemiyorlarma
ayaga ma rabaan miya macnaha ay samaynayso konuşmak waa hadal onlar waa ayaga ayaan kusoo sheegnay casharada onlar konuşmak istemiyorlar ayaga inay hadlaan ma rabaan miya hazırlık çalışması waa hordhaca wada shaqaynta aan cashirka u wada gudbayno hazırlık waa u diyaargarowga çalışmana waa shaqada u diyaargarow waa cashirka hordhiciisaan ka baxnay cashirkaan toos ugu gudagalaynaa asigaa mataqaanaa hordhac gaar uu leeyahay haddina nambarka koowaad insanlar aşağıdaki yerlerde neler yapıyorlar söyleyelim dadyowga insan waa bini aadam waa taqaanaan sidaa luqadda carabiga ku taqaanaan insanlar waa hal qof maahan waa la jamciyey dadka meelaha ama goobaha hoos ku yaala maxay ka samaynayaan ama ay ka qabanayaan söyleyelim aan sheegno insanlar aşağıdaki yerlerde neler yapıyorlar meelaha hoos ka muuqda dadka maxay ka qabanayaan aan sheegno sida sawir waxaa noo muuqda stadium meel kubad lagu daawado meel show ka jiro meel lagu soo bandhigayo mataqaanaa sawiraan oo sawir gacmeed camal bandhig faneed la sameeyey iyo bandhigyada caadi tiyaatarada masraxyada sida masraxa qaranka dhawaan la sameeyey camal meel adiga fagaara dadka lagu madadaaliyey ayaa 4 sawirna looga soo kala qaaday meeshana ugu qoran teatro ayaa ku hoos qoran masalan teatro waa meel dadka lagu madadaaliyo masrax leh wax laga sharxo shaneemooyinkan caadiga oo aflaanta caadiga hjiga intaynan bilaabanin ka hor waa shaneemo life aa jiri jirta riwaayado ah teatro waa meel mataqaanaa madadaalo lagu sameeyo teatro soomaalida teatro ay dhahaan cinema waa shaneemo cinema waa shaneemo resim sergisi waa bandhiga sawir gacmeedka resim sergisi waa sawir gacmeedka bandhigiisa bandhig sawir gacmeed waa la dhihi karaa cafe waa meel cafeteria dance gösterisi meel dad ku jaasayaan ama ku niikinayaan bandhiga ay samaynayaan dance waa caadiga ila dance ila ciyaartii oo mataqaana dance waa dance in englishna dance ayaa lagu dhahaa turkigana sidoo kale waa bandhig deel ama jazz concert waa meel mataqaanaa uu ka jiro bandhig oo fanaaniin ay imaanayaan oo heesa laga qaadayo bale waa meel mataqaanaa deel mataqaanaa reer galbeedka ay leeyihiin oo dadka in khaasatan dumarkaa dheela inay daryar soo qaataan oo gymnastic dadka mataqaanaa lafahooda kala baxsan yahoo mataqaanaa bandhiga jirkooda iyo dharkooda ku sameeya ciyaarta bale nooca laga wado soomaali waxaa maanta ugu fasira ma aqaan laakiin googolka geliya waa intaan ka fahansanahay adigana waa ka fahmi kartaa opera sidoo kale waa meel hool weyn oo dabaqyo kala duwan leh oo isla masrax leh oo wax laga soo bandhigo meesha madaxda dadkooda kala hadasho iyo meel lamid ah opera ayaa la dhahaa football match iyo waa ciyaar football ciyaar kubad banooni ah intaas ayaa lagu hoos qoray sawiraantaas nambarka labaad siis buyarlere gidiyor musunuz adiga goobo noocan meelo noocan ma aadaan aşağıdaki kelimeler ile örnekteki gibi cevap verelim siz waxaa lahay adinka bu yerlere gidiyor musunuz meelo noocan ma aadaan aşağıdaki kelimeler kelimooyinka hoos ku yaala jumlooyinka hoos ku yaala ile örnekteki gibi cevap verelim sida tusaalayaasha mataqaanaa
sida tusaalayaashii aan soo qoranay camal jawaab aan ku bixino. Sid badanaa, baazan marmarka qaar. Sid waa si frequently mataqaanaa had iyo jeer. Sid waa had iyo jeer. baazan dhawaqeeda u fiirsada. sid had iyo jeer. baazan badanaa. each marnaba. each waa never ayay ka dhigantaa. her I bil walba. her hafta isbuuc walba. I waa bil. herna waa every month waa bil walba. her hafta isbuuc walba. hafta waa isbuuc. genericle badanaa. usually ama generally waa u fasira kartaan. usually genericle badanaa ayay ka dhigan tahay. tusaale ahaan meesha waxaa tusaalena lagu qoray ben sig sinemaya gidiyorum. aniga mataqaanaa aniga badanaa sineemada waxaan u aadaa si mataqaanaa isbuucla camal. tusaale ahaan badanaa si frequently ayaan u aadaa ayaa tusaale nalagu siiyey. tusaalayaasha qaar habeenka ku hoos qora luqadda inta ogaal aa ka leedihiin, intii cashir aa soo qaadateen, inta aa ka fahansantihiin. tusaale ahaan sen baazan ukula gidmiyorson masala camal ka dhig. midda labaad adiga qor. adiga iskoolka mar walba ma aadi. sig jumladaana lagu isticmaalay. baazan ka bilow. sen hiç yalan söylemiyorsun. adiga marnaba been ma sheegtid camal ku qor meesha. onlar her ay evlerine gidiyorlar. macnaha ayaga bil walba gurigooday aadaan. arday college ku jiro bishii hal mar la fasaxa camal. tusaale kasoo qaad qor. babam her hafta eve geliyor. aabahay isbuuc walba guriguu imaadaa. tusaale ahaan jumlo noocaas dhis. generally mid ah. genericle sen yada oo genericle bize gelir. asiga badanaa wuu noo imaadaa, wuuna soo booqdaa. rey noocaas dhis. marka intaa waxa ka dambeeyo waxaan u gudbayaa cashirka maanta waa cashir akhris ah. xasan qaybta ukumaha cashirka qaybtiisa buluug inogey. ukuma waa cashir reading ah, akhris ah. cashirka readingka mawduuciisa wuxuu la magac baxay hafta sonu neyabiorson. hafta sonu neyabiorson. weekendiga maxaa qabataa? maalmaha isbuuca uu ku dhammaado maxaa qabataa? tusaale ahaan waa meeshan waa la isku wareysan doonaa. dhegeysi wacan. erdaal iyo sarhaad laba wiil la kala dhaho ayaa meeshan isku wareysanaya. erdaal waxa uu leeyahay merhaba sarhaad. sarhaadow wiil kaloo sarhaad la dhahay ayuu wuxuu leeyahay haye sarhaad. evdenisin guriga miyaa joogtaa? sarhaadna wuxuu ku jawaabaa salaam, waa kaa qaaday ama waa ku salaamay camal. hayir maya. diilim hayir evde diilim muu dhihi karay. maya ma joogi. guriga miyaa joogtaa ayaa la weydiiyey. maya ma joogi. hala ishtayim. hala weli waaye. hala ishtayim weli waxaan joogaa shaqada. bugulnarde çok meşgulum. maalmahan aad ayaan u mashquulsanahay. her gün geç saatlerde işten çıkıyorum. her gün maalin walba geç saatlerde saacada xilli dambe ayaan işten çıkıyorum ayaan shaqada ka soo baxaa.
وإلا فانتين عملنا دوغو لاردي çok meşgulüm. Malman adan o meşgulsanay. Her gün geç saatlerde işten çıkıyorum. Maalin walba xilli dambe oo leyd ah waqtigii la shaqeeyo waqti ka dambeeya ah ayaan shaqada ka soo baxaa. Erdaal waxa uu leeyahay anliyorum waan ku fahmi karaa waan dareemaa uzun zamandır görüşemiyoruz. Anlıyorum waan ku fahmay ama waan ku dareemaya uzun zamandır waqtiya badan uzun zamandır waqti dheer görüşemiyoruz. Waayaan isma arkin camal. Ya, uzun zamandır görüşemiyoruz. Waayahan maalmahan isma arag. Yarın akşam boş musun? Habeen dambe fiidkii free miyaa tahay eber miyaa tahay oo hawl faraha kumlama jirtid ayaan filayaa camal su-aal inuu weydiiyo rabaa. Yarın akşam boş musun? Habeen dambe waqti firaaqa miyaa haysaa? Seni görmek istiyorum. İnan ku arkaan rabaa. Serhat wuxuu leeyahay yarın akşam mı? Beri fiidkii miyaa ka wadaa micnaa yarın akşam mı? Beri fiidkii miyaa? Sanmıyorum. U malayn maayo. Sanmak waa u malayn. Sanmıyorum. U malayn maayo. Ben çok meşgulum. Aadan u mashquulsanahay. Aniga aadan u mashquulsanahay. Ama dışarı çıkmak biraz nefes almak istiyorum. U malayn maayo ayuu dhahay. Habeen dambe mar haddaan leedahay aadan u mashquulsanahay ama dışarı çıkmak laakiinse inaan banaanka soo baxo biraz nefes almak oo xoogaa yar aan neef soo qaato mataqaanaa oksijiin soo helo banaanka xoogaa soo socdo biraz nefes almak inaan xoogaa soo nafiso istiyorum waan rabaa. Ben hafta sonu müsaitim. Aniga weekendiga ayaan mataqaanaa musaacid ahay ayaan waqti helayaa aan firaaqa ahay ayaan la heli karaa. Waxa uu yiri ben hafta sonu müsaitim. Aniga weekendiga maalinka sabtida iyo axadda dadkan u ah oo annagana khamiisii jimca noo tahay camal shaqo iima jirto ayuu ka wadaa waan firaaqan ahay. Hafta sonu ne yapıyorsun? Weekendiga maxaa qabanaysaa? Isbuuca dhammaadkiisa maxaa qabanaysaa? Erdaal waxa uu yiri hafta sonu Kadıköy'deyiz. Erdaal wuxuu leeyahay hafta sonu weekendiga Kadıköy'deyiz. Xaafadda Kadıköy la yiraahdo degmada Kadıköy la yiraahdo Istanbul ka tirsan ayaan ku suganahay. Waqtiyadaas joogaya arkadaşlarla maça gidiyoruz. Arkadaşlarla maça gidiyoruz. Asxaabta ayaan mataqaanaa ciyaar daawasho isu raacaynaa. Koox Turkiga ka dhisan naadiga kaalmaha hore kaga jirto Fenerbahce ay dhahayaan stadiumkeeda ayay wuxuu ku yaalaa xaafadda ama degmada la yiraahdo Kadıköy. Sidaas awgeed ciyaar daawashaan mataqaanaa ku soconaa ayuu leeyahay. Sen de gelmek istiyor musun? Adigana inaa imaado ma jeclaan lahayd ma rabi lahayd inaan na soo raacdo nala soo daawato ciyaarta. Serhat wuxuu leeyahay maç güzel bir fikir. Maçka waa fikir wanaagsan ama gelmek istemiyorum. Laakiinse inaan imaado ma rabo. Sakın bir hafta sonu geçirmek sakin bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Waxaan rabaa weekendi oo haadi ah oo degan anaa maalmahayga fasaxa maalmo degan inaan ku qaato ayaan rabaa. Hafta sonahan weekendigan sakin jawi degan sakin bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Geçirmek waa to spend ku qarash gareyn ku qaadasho ma fahanteen macnaha waqti degan inaan jawigayga ku qaataan rabaa. Cumartesi sabah kahvaltıya ne dersin? Maalinka sabtida ah quraac haddaan isu raacno banaanka kasoo quraacno maxaa ka leedahay?
erdaal wuxuu leeyahay tamaam waa okay naarde bulshurus xageen ku kulmi doonaa xageen ku kulannaa serhaad wuxuu leeyahay meeshaan nazar kafey milyoon musun kafeyga nazar ay dhahayaan nazar ay ugu magac dareen kafeterigaas meesha lagu raacdo maqaaxida ma garanaysaa erdaal wuxuu dhahay hayr bilmiyorum maya ma aqaano naarde xagee ku taala hayr waa maya bilmiyorum ma aqaano ama garan maayo meeshay ku taala ma aqaano naarde xagee ku taala ayuu sii weydiinayaa soo hadalkiisa sii wata waxaa loogu jawaabayaa kadikoy modada degmadii mataqaanaa kadikoy la dhahayo hadaata cashirka kusoo qaadanay meesheeda lagu sii magacaabo mooda meel mooda loogu magac daray oo kadikoy degma ahaan ka xaafad ka mid ah deniska naaranda waa badda xeebta micnaha dhinaceeda kenaar waxaa la dhahaa fiiqeeda ama geeskeeda badda geeskeeda maqaaxi saaran view leh oo meel beach view camal kusoo quraacannaa ayuu leeyahay deniska naaranda badda geeskeeda hafta sonları açık büfe kahvaltı var maalmaha weekendiga waxaa jirta quraac açık buufe la yidhahdo quraac waxaa jirta lacag qadar macquula bixinaysaa waa calooshaada ku qaado wax walba waa cuni kartaa hadaadan bannaan ku qaadanaynin lacag qadar macquula baa bixinaysaa wixii indhahaaga jeclaado calooshaada qaadaa cuni kartaa menu la yidhaahdo ayaa mataqaanaa jiro uu leeyahay joog guzaal biryar waana meel wanaagsan oo aada u qurux badan joog guzaal biryar guzaal waa qurux badan khaasatan gabdhaha ayaa loo isticmaalaa tan wiilasha waxaa la dhahaa yaqshakle bir erkek nin qurux badan guzaal bir bayaan gabar dumar ama naag qurux badan jumlo noocaasaa loo dhisaa macnaa guzaal ka taxadara nin ha u isticmaalin sida englishka beautiful iyo handsome ugu kala qaaday si lamid ah af turkigana waa sidaas joog guzaal biryar waa meel aada u qurux badan ayuu leeyahay joog guzaal biryar waa meel aada u qurux badan erdaal wuxuu leeyahay tamaam waa okay tamaam waa haye ama okay way u isticmaalaan dadkan kaca buluşuyoruz goormeen kulannaa saacad 9'da uygun mu saacadda markay 3 saac tahay uygun mu ma kugu habboon tahay serhaad wuxuu leeyahay ben biraz uyumak istiyorum aniga waxaan rabaa xoogaha in mataqaanaa aan hurdo saacad 10'da nasr subaxi mataqaanaa 4 saac iyo bar iyo wixii ka dambeeya quraaca maxaa ka leedahay buçuktan nasr 4 saac iyo bar ka waran erdaal wuxuu leeyahay tamam gerçekten maça gelmek istemiyor musun bu maç çok heyecanlı markii ugu dambeysay okay ayuu ku yiri waa mataqaanaa 4 saac bar waan imaan karaa laakiinse meeshaan hadalka daatiya weli ku taagan gerçekten maça gelmek istemiyor musun markii dhabta laga hadlo ciyaarta inaa imaadid maratid miya bu maç çok heyecanlı ciyaartan waa ciyaar xiiso leh oo xamaasad ku tiirsan oo mataqaanaa waa ciyaar aada u wanaagsan oo kooxo waaweyn ay ku loolamayaan ayuu leeyahay serhaad biliyorum çok güzel maç waan ogahay waa ciyaar qurux badan stress atmak istiyorum inaan stresska ihaayo iska tuura ayaan rabaa kalabalagtaan sakliyorum meelaha laysugu soo xumo laysugu imaado sida meel ciyaar lagu daawanayo buuqeeda iyo saxmadeeda sakliyorum waan ku caajisaayo kama hela ayuu leeyahay sakilmaad waa ku caajisid kalabalagtaan sakliyorum meelaha saxmada waan ku caajisaa erdaal beki cumartesi görüşürüz waayahe sabtida inoo balana ayuu ku yidhi
wada sheekaysiga markaan fasirayo waa idiinba bandhigay sida ugu macquulsan aad u fasiri kartaan anoo ku fakarayo meeshaan su-aalahan idiin fasiraya kadib beji kale haddaan waqti u helno waan fasiranaynaa haddii ay kan nagu badan tahayna waa joojinaynaa sideen macquul nala noqotaa nambarka saddexaad aşağıdaki cümleleri metne göre düzenleyelim. Cümlooyinka mataqaanaa waxaa lahay hoos ku yaala sida qoraahyadii sida mataqaanaa cashirkii akhriska ahaa baragraafkii annagoo u fiirinayno aan u hagaajino aşağıdaki cümleleri metne göre düzenleyelim. Cümlooyinka hoos ku yaala annagoo u eegayna sida baragraafka aan mataqaanaa u hagaajino düzeltmek waa hagaajin neden yanlış why ay u qaldan yihiin söyleyelim sidoo kale why-ka jumladan meesha ku qoran way qaldanta haddaa leedahay maxaa qalday waa la leeyahay söyleyelim aan intaas sheegno waxaa la leeyahay midda koowaad Serhat ve Erdal hafta sonu maca gitmek istiyor Serhat iyo Erdal ya waxaa la leeyahay weekendiga ciyaarta inay wada aadaan ayay rabaan meeshaan cashirka waxaan kusoo arkaynay in mid uu rabo midna uusan rabin marka sababtaas jumlo yar ka sameeya meeshaa ku qoran Erdal mataqaanaa ayaa ciyaarta rabay Serhat ciyaarta mataqaanaa inuu aado ma rabin inuu mataqaanaa stresska iska tuuro rabay oo wuxuu u nacbanaa ama uusan markaasi ka helaynin meelaha buuqa waa taas jawaabteeda ka dhigaysaa midda labaad Serhat ishtaan arkaan jiriyo Serhat shaqada aroor buu ka soo baxaa shaqada xilli dambe ayuu ka soo baxayo ayaan mataqaanaa ku qoraynaa meeshaan aroorka ma soo baxo ee xilli dambe ayuu ka soo baxaa Erdal sabah kahvaltıya Erdal subaxi mataqaanaa quraac mataqaanaa inuu la quraacdo ma rabo ayaa meeshaan lagu qoray maya ee wuu rabaa wuu ogolaaday Serhat futboldan hoşlanıyor Serhat mataqaanaa futbolka kama hela ayaa la tahay waa been uu ka helaa laakiin xilligan inuu daawado ma rabin jumla ka dhig meeshaas oo jumla noocaas dhis number 5 Erdal maca yalnız gidiyor Erdal ciyaarta keligii ayuu aadaa ama keligiis inuu aado rabaa maya asxaabtiisa inay isu raacaan ayuu rabaa intaas ayaa jumlooyin mataqaanaa mar walba waxaa la fiirinayaa adiga capacitigaaga jumla dhisida intee maraysaa maadaama weli unitka saddexaad aa sii marayso maadaama aa sii marayso unitka saddexaad waxaa baratay oo baraatigeesa ku celcelisa nambarka afraad dialogo ama tam dialoga aan sharaxno Erdal Serhat'ı arıyor tusaale ahaan dialogii aan soo aragnay sida uu u qoran yahay camal aan u sharaxno Soomaali haddii ku sharaxdo waa siday kugu sahlanaan lahayd oo haddii leed Erdal baa Serhat'u soo wacayaa Serhat ayuu ka dalbanayaa inuu mataqaanaa habeen dambe fiidkii in uu la kulmo ayuu rabaa laakiin Serhat ayaa ka cudur daaranaya wax la mid ah oo inaad buugga isku laabto keligaa isku day intii karaankaaga cashirka markaad si fiican u akhriso kadib uu kaa dhaadhaco ayaa intaas samayn kartaa iyadana halkaasaa uga baxaa yasiis qaybtan hoose buluuga waxaa la yasiis bal adikana adika galaaska ku jira hafta sonu neler yapmak istiyorsunuz weekendigi maxaa inaad samaysaan aad rabtaan weekendiga adiga sidee kugu dhaaftaa muqdisho adigoo joogo wiil iyo gabar maskaxdaada ka alif Soomaali ahaan habayso mar haddaa mataqaanaa Soomaaligeeda habayso af Turkigeeda waa la dhisi karaa laakiin ninkan taas ba hadaf ka lahayn tanna lalama sax
marka cashir cusub grammar yara meeshaan inoogu qoran ilaa haafkaan tagayaa marka waa sii socodsanaya shaashada dhinaca kale diil bilgisi waa grammar boga 47 bilowgiisa maanta waxaan grammar ahaan u baranaynaa 1-2 oo English ah Mark Stewart sidaan inaad sameeyaan rabaa sidaas inay sameysay rabtaa sidaas inay yeelaan ayay rabaan marka af Soomaaliga lagu dhahay ama Englishka lagu dhahay ama Carabiga lagu dhahay jumlooyin noocaas hadaa soo arki jirteen casharkan hadaa barataan wuxuu idinka saacidi karaa in luqadani jumlo badan aad dhistaan marka fiiro gaar la soco Mark iyo make in jumlo walba asalkeeda ay gadaal ka raacayso hadda ka hor waan inii sheegay Mark iyo make oo injay kala loo kala fiirinayo uriidu an ayaa Carabiga lagu dhahaa ana uriidu an afcala shay kida waxaan rabaa inaan sidaan sameeyo markii Carabiga lagu dhihi jiray ama Englishka I want to be or to do this or that markii wixii Englishka lagu dhihi jiray si lamida af Turkigana kuna yaab Mark Stewart sidaan inaan sameeyaan rabaa kan inaan yeelaan rabaa fahanteen cashar lamida ayaan u gudubnay qaacidadiisa waa aragtaan ficil verb ayaa laga wadaa plus mark istamek waa want to be verb plus want to be ayaa la dhahay plus zaman akid zaman akid waa qaacidada waqtiga plus waxaa la dhahay kishi akid annagoo raacinayno object waa jumlo qaabkaasana loogu dhisay daa qaacidada ku wareerteen tusaalayaasha u gudubno si fasiix oo degan ayaan idinkugu fahansiin karaa cashir adag ma aha cashir diin muhiima waay kan haddaa idinka dhaadhacan jumlooyin badan af Turkiga waa dhisan kartaa örnek waa example waa mithaal waa tusaale midda koowaad seninle konuşmak istiyorum adiga inaan kula hadlaan rabaa ma aragtaan Mark istamek ayaa qaacidadeena ahayd adiga inaan kula hadlaan rabaa sen waa adiga ahayd seninla I want to speak with you ma fahanteen I want to talk with you ama inaan kula hadlaan rabaa seninle waaba garanay adiga ayaan inaan kula hadlaan rabaa ayay ahayd konuşmak waa hadal istemekna waa rabid seninle konuşmak istiyorum adiga inaan kula hadlaan rabaa markii aan ku dhahayo tusaale ahaan aniga inaan ila hadasho miyaa rabaa waxaan ku leeyahay benimle ma konuşmak istiyorsun aniga inaan ila hadasho miyaa rabtaa على سؤال يا قداش اسككلها ماشي سنين لا بنملى ايان قلنيا سؤال ما دام اي سوق الشيء بنملى ما انا جميع هي يا انا الى هذا الشرط ايان كلها دريا باركا gitmek istemiyor دريا قبل اللي يرادو باركا gitmek istemiyor حديقة inay aado ma rabto دريا gabadha la yiraahdo markay gitmek istemiyor inay xadiiqada aado ma rabto marka cashirkan waxaa u jeedaan inuu sahlan yahay tusaalayaasha qaacidada iyo sida loo soo koobay asoon aad loogu dheeraano erayo badan la jiidin ayaa horey waxaa laga galay su'aalo xataa in idinka weydiiyo numberka shanaad aşağıdaki cümleleri
örnekteki gibi tamamlayalım. Cümlooyinka hoos ku yaala waxaa la dhahay sida tusaalaha aan u dhammaystirno. Midda koowaad, joogkii organum aadaan u daalanahay. Joogkii organum aad baan u daalanahay. Biraz dinlaan. Biraz dinlaan ayaa meeshaan ku qoran. Aad baan u daalanahay. Biraz dinlameeg baa leedahay. Dinlaanmeeg. Inaan xoogaa nasto ayaa rabaa. Biraz dinlaanmeeg istiyorum. Meeg ayaa ku daraysaa istiyorum. Maadaama adiga ay kugu saabsan tahay. Midda labaad, aaj dilim ma gaajooni. Yemeeg istemiyorum. Cunto inaan cuno ma rabo. Midda saddexaad, nadaan hazırlanmıyorsun. Maxaa isu diyaarin la'dahay? Bizimle gelmek istemiyor musun? Neden hazırlanmıyorsun? Maxaa isu diyaarin la'dahay? Bizimle gelmek istemiyor musun? Inaan soo raacdo ama na raacdo ma rabtid miya? Nambarka afraad, bugün hava çok güzel. Maanta hawada mataqaanaa aad bay u wanaagsan tahay. Dışarı çıkmak istiyor musun? Bugün hava çok güzel. Maanta hawada aad ay u wanaagsan tahay. Dışarı çıkmak istiyor musun? Banaanka inaad u baxda ma rabtaa oo laga soo qaadato soo dalxiisto. Nambarka shanaad, pardon waa excuse me sida Englishkaba ka ahayd si lamida af Turkina pardon ayaa la dhahaa. Ben bir bilet almak istiyorum. Waxaan rabaa bilet. Ben bir bilet almak istiyorum. Anigu waxaan rabaa inaan tikid soo qaato. Nambarka lixaad, çocuklar evde televizyon seyretmek istemiyorlar. Dışarıda oynamak istiyorlar. Carruurta guriga inay TV ku daawadaan ma rabaan. Dışarıda oynamak istiyorlar. Banaanka inay ku ciyaaraan ayay rabaan. Nambarka toddobaad waxaa la dhahay meeshaan, siz tatilde ne yapmak istiyorsunuz? Adika fasaxa maxaa inaad samaysaan aad ku fakeraysaan? Wax noocee inaad samaysaan ayaa rabtaa. Midda toddobaad waa fasirkeeda. Sideedaad, çok kızgınım. Aad baan u caraysanahay. Aad baan u xanaaqsanahay. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Qofna inaan la kulmo ma rabo. Qofna inaan la hadlo ma rabo. Labadaasba. Görüşmek waa hadalka caadiga u noqdaa. La kulanna u noqdaa. Aad baan u caraysanahay. Qofna inaan arrinkan kala hadlo ama kala kulmo ma rabo ayaa ku fasiray intaasna. Nambarka sagaalaad, kızım öğretmen olmak istiyor musun? Kızım öğretmen olmak istiyor. Gabadhayda inay macallimad noqoto ayay rabtaa ayaa meeshaan lagu dhahay. Qaybtan maxaa jira? Tusaalihii hadaati orneegii cashirka uu ku bilaabanay. Laba xaba keliya ma ahayn, afar bay ahaayeen. Laba xagga sare lagu qoray, labana dhinacooda kala lagu aadiyey. Biz yarın piknik yapmak istiyoruz. Annaga berita inaan piknik samayno ayaan rabnaa. Piknik waxaa la lahaa in xaafadda laga baxo, gaarigiina wixiina la qaato, cuntadii banaanka markaad dalxiisaysaan xeebta ama hawdka. Inta maalinka guriga laga maqan yahay, banaanka hilib ama digaag wax lagu habaysto, meesha lagu qadeeyo, lagu soo baashaalo, galabka laga soo raaxo. Dadka xeebaha aada, dadka dalxiiska aada way yaqaanaan. Picnic marka Turkiga picnic ayay dhahaan. Biz yarın piknik yapmak istiyoruz. Annaga berita inaan picnic samayno ayaan rabnaa. Banaanbax oo mataqaanaa magaalada inaan ka baxno, soo dalxiisno, nolol natural soo qaadano ayaan rabnaa ayay leeyihin. Istanbul'da nerede oturmak istiyorsunuz? Istanbul xaggee inaad ka degtaan ama kaga noolaataan aad rabtaa. Waa qaybtaasa uga baxay. Iyadana waa tusaalihii, afar tusaalaha meeshaan ku aragnay.
numberka 6 meeshan aşağıdaki cümleleri make iste yapısı ile tamamlayalım. Cümlooyinka hoos ku yaala aan ku dhamaystirno make istemek, yapmak istiyorum, etmek istiyorum, görüşmek istiyorum. Cümlooyin noocaas aan ku dhamaystirno. Numberka 1 waxaa la dhahay spor yapıyorum, sportis baan sameeyaa, çünkü sağlıklı olmak istiyorum. Sportis baan sameeyaa maxaa yeelay jumlo adiga hebel ah bis haddii lagu dhaho in qof fit aan noqdaan rabaa, qof caafimaad leh baan rabaa, qof aanan ciyood qowin ayaan rabaa. Erayo noocaas haddaad dhihi lahayd mid kugu habboon tusaale ahaan dheh aniga waxaan idin leeyahay sağlıklı olmak istiyorum, qof caafimaad qaba, caafimaadka ilaaha bixiyo, haddii qof naftii ku dadaalay inaan noqdo ayaan rabaa. Waa midda koowaad halkaas uga bax. Midda labaad evden çıkıyorum, guriga ayaan ka baxaya, çünkü maxaa yeelay okula gitmek istiyorum, iskuulka inaan aadaan rabaa, ama işe gitmek istiyorum, inaan shaqada aadaan rabaa. Labadaa mid adigay kaa go-an tahay. Numberka 3 Türkçe öğreniyorum, af Turkiga ayaan baranaya, çünkü maxaa yeelay, çünkü waa because, maxaa yeelay üniversiteye gitmek istiyorum, jaamacadda inaan aadaan rabaa. Jaamacad af Turki ku baxaysa inaan aadaan rabaa, ama Türkçe konuşmak istiyorum, af Turki inaan ku hadlaan rabaa. Ya labadaba waa dhigi kartaa. Numberka 4 çalışıyorum, waan shaqeeyaa, çünkü para kazanmak istiyorum. Waan shaqeeyaa maxaa yeelay inaan lacag helo ayaan rabaa, ayaa meeshaan la dhahay. Maxaa ii xiga? Para biriktiriyorum, lacag baan uruursanayaa, çünkü maxaa yeelay araba almak istiyorum, gaari inaan soo iibsadaan rabaa. Ev almak istiyorum, guri inaan gata ayaan rabaa. Numberka 6 kütüphaneye gidiyorum, maktabadda ayaan u socdaa, çünkü kitaab almak istiyorum, maxaa yeelay buug inaan soo gata ayaan rabaa. Numberka 7 markete gidiyorum, marketka ayaan u socdaa, çünkü bir şeyler almak istiyorum, wax uun inaan soo gataan rabaa. Marketka ayaan u socdaa maxaa yeelay bir şeyler almak istiyorum. Waa numberka 7 wax uun inaan soo gata ayaan rabaa. Cashirka maanta intaasaan ku joojinaynaa. Recordingka noo joojiye, insha Allah waa iswareysanayna.